sharciga ma u siman yihiin danyarta iyo dadka waxhaysta ee saamaynta leh tusaale hotel SYL waxa uu ku yaalaa dhul dawladeed waxa ku shaqaysta ganacsato uu hormuud u yahay xildhibaan Abtidoon Yare hotel Afrique goobta uu ku yaalo waa dhul dawladeed waxa ku shaqaysta ganacsade Xuseen Guley warshada baastada waxa laga kireeyay shirkadda Hormuud oo awood dhaqaale kula dhammaan gayiga Soomaalida tarbuunka oo ahayd fagaara dawladda Soomaaliya leedahay waxa laga dhisay guryo casri ah oo ay degan yihiin siyaasiyiin iyo ganacsato dabaqada sare ah waxaana dhistay ganacsade Mire Indha Yare ganacsatada waxa la farayaa in muddo 30 maalmood ka bilaabanaysa maanta ay ku baneeyaan kalena baxaan waxa la wixii agaba hadalkan waxa uu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir 3 July waxaana dhamaatay waqtigii maamulku u qabtay dadka degan dhulalka danta guud laakiin ilaa hadda ma muuqato inuu fulay amarkii duqa Muqdisho mana jirto wax isbedel oo dhacay haddaba bilowga hawshan miyaa sharci darro ku bilaabatay maxaa hakad ka galiyay laba arrimood oo isku dhaxyaacsan ayaa jira kow waxaa jira in la burburiyay ama la wareegay dhismayaal danta guud oo dawladdii tan ka horeysay bixiyeen waxaana maamulka gobolka Banaadir uu ku tilmaamay arrinkaasi sharci darro labo waxaa jira qaar kale oo dhulal dawladeed ah oo ay ku yaalaan hoteello caan ah kuwaasi waa ka nabad galeen maamulka gobolka Banaadir oo sidooda ayaa loogu shaqaystaa oo sabab waxa goobahaasi ka faa'iideysta shakhsiyaad saameyn dhaqaale iyo siyaasadba ku leh gobolka Banaadir haddaba gudoomiyaha gobolka Banaadir laba arrimood midkood ayuu u hakiyay burburinta iyo dib u soo celinta hantida dawladda inuu laaluush ka qaatay maalqabeennada haysta goobahan aan sharaxnay ama cabsi uu ka qabo saameynta iyo awoodda ay leeyihiin ganacsatadan iyo siyaasiyiintan haysta dhulka dawladda waan wada ogsoonahay inay jiraan hanti guud oo shakhsiyaad haysto loo fasaxay laga kireeyay laga iibiyay qaar kalena waxa jira dadkii laga saaray waaja oo dad kale hadana la siiyay inta laga saaray waxayada kale ama shakhsiyaad kale private la siiyay waa iska jiraan marka dawladnimada ka soo horjeeda sinaanta dadkeena Soomaaliyeed inay u wada siman yihiin dalkan xaq isku xaq siman leeyihiin ay meel uga dhacaysaa